السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دواada أحبابي aan jeclahay qalbi furan iyo gacmo furan kusoo dhawaada kaamila channel kusoo dhawaada please haduu kusoo gaaro videoga waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe noo dhahdo like noo dhahdo noo share gareyso wixii fikir iyo ra'yi haysan xagga hoose oo commentiga aan ugu reebto maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno vitamin D faa'iidada uu leeyahay intee laga helaa intooyinka laga helo iyo dadka qof macnaha bini aadamka ama people-ka yani muhiimad intuu u hayaa okay aan ku hormar horta vitamin D-ga intooyinka laga helo iyo muhiimada uu leeyahay bini aadamka vitamin D-ga horta wuxuu leeyahay faa'iido aad iyo aad u weyn xag wuxuuna qaybsan yahay xagga lafaha qofka vitamin B-ga oo ka maqan yahay oo kaleento vitamin B-ga haduu ku yar yahay waxaad dareemaysaa qofka qandho dareemaya wuxuu dareemaya murqo xanuun dareemaya qofka inuu qof casaabi iyo xanaaqsan uu noqdo uu dareemaya haduu asaga ugu yaraadana cudurro badan oo asaga ka difaacayaan way kugu soo dhacayaan okay vitamin D-ga qoraxdana waa laga helaa cuntadana waa laga helaa vitamin D-ga inta badan cuntada kan laga helo kaliya kuma filaanayo kan qoraxda laga helana muhiim ayuu u yahay Soomaalidana ama dadka intooda badan qoraxda way ka dhintaan ama hadii hal mar kale ku baxdo kaleeto ama ku soo noqoto kaleeto waxba kuma daraa sababtoo ah dadka jismigooda uu madow yahay waxa loogu talagalay ilaa iyo hal saac oo kaleeto inuu jismigooda oo korkooda ku geli karto qoraxda laakiin hal daqiiqad marto oo soo noqoto oo hadana dharkaan xiran tahay oo kaleeto waxba ku macnaha wax oo fidmay aad qorax ka qaadato kuma noqon karo kuma kaafin karaan marka ilmaha yaryarka ah horta ugu daranba ilmaha yaryarka ah inta badan guriga lagu hayo banaanka looma bixiyo qoraxda lama geeyo guriga iskaga jira ilaa inta inuu yacnaa hal sano oo laba sano oo kasoo gaarayo ilmaha waxa arkaysaa markii la dhalo oo yani guriga soo ugu jiro markuu istaag ama socodka oo bilaabay lugaha ka qalocanayo sababta waa uu qalocanayo waxa waaye vitaminka oo qoyar oo qorax ma uusan arkin sometimes waxa laga yaabaa inuu baby-gi yani oo naaska hooyada kaliya bis nuugayo naaska hooyada bis oo nuugayna vitamin ku filan ma siinaa sababta oo hooyadii ayada vitamin badan haysan oo laga yaabaa vitamin D-geed inuu ayada ku yar yahay marka cunugi vitamin D badan ma helayo saas darteed markuu cunugi socodka bilaabo in lugaha ka qalocdaan laga yaabaa marka ilmaha markay riiriin qoraxda hooyinku waxaan ku yaanila qoraxda ilmaha markay riiriin qoraxda la geeyo yani dhowr ko saacadood la geeyo subaxii oo kale inta farsa markii la marayo habeenkii oo galabkii oo kale 9 saac markii la marayo in la geeyo waa vitamin D-ga muhiim ayuu u yahay lafaha sometimes qof waxa arkaysaa inuu inta kufo yani jabayo sababta uu jabayo waxa waaye vitamin D-ga ayaa korkiisa ku yar laftana saas ku jabaysaa marka vitamin D-ga waxa laga helaa asoo kaniini waa la qaataa qoraxda waa laga helaa intooyinka laga helo vitamin D-ga waxa waaye malayga ama kalluunta oo taqaanid caanaha waxa laga helaa broccoli-ga waxa laga helaa koostada waxa laga helaa digiraha macnaha digir ama maxaa la dhahaa adiga digirta laga helaa inta badan waxa laga helaa jiiska oo kale inta laga helaa marka qofku waxa la vitamin D-ga haduu kugu yaraado mar sida lagu soo celiyo way adag tahay vitamin D-ga inaa yani oo haduu kugu yaraado soo noqdo way adag tahay kaniini kaliya oo qaato intaas oo cunto wax ku taraa waa inuu lagu soo celiyo qofka dhaqtarkiisa oo taga oo la socda caafimaadkiisa si oo vitamin D-giisa uu kontaroolo macnaha inuu sidiisa hore uu soo noqdo oo kaleento vitamin D-ga marka waxa ku soo celin kartaa inuu maalintii qofku oo yani wax caano ku jira oo 3 waqti qaato sidana galaas caano cabto kala subaxii habeenkii duhurkii oo kaleento inaa yani wax kaloo waxaas cunto qalabkii kala jiisana cunto ama duhurkii meesha malayka cunleeda macnaha yogurt cunti oo 3 caano la qaadatid ama 2 caano la cagaar qaadatid sidaas ayaa vitamin D-gaada xoog ku soo celin kartaa kaniinigiisa qofka inuu qaato dadka wadamada qabowga ama barafka jooga ayaa ugu daran oo lafahooda macnaha qabow markuu soo dhaco ma xamil karo dhuux intuu ka dhamaado qofka oo la fahmado baadaan
يعني عنjiyihii inay soo madoobaadaan oo kaleeto qofkaas vitamin D-ga ayaa ku yar marka waa inaad dhakhtarkaada qofka u tago dhakhtarkiisa oo vitamin D-giisa soo jeegaraya daawada uu qaadan lahaa vitamin D-giisa cuntooyinka wixii dhan inuu isku kontaroolo ilmaha oo kaliya ma aha dadka waaweyn xitaa qoraxda way u baahan yihiin oo anaga waa u baahannahay inaan qoraxda qaadano waayo wayna anfacaysaa inaan subaxii oo kale aan u baxno qoraxda oo kaleeto dhowrkoo saacdood soo joogto duhurka galabkii oo kaleeto 9 saac markii la gaaro aan tagno oo kale inaan ayadana qoraxda xoogaa ah kasoo qaadano waxyaabihii vitamin D-ga keenaya aan qaadano sababtoo ah muhiim jiddan ayuu wuxuu u yahay lafahaada qofka bini'aadamkana waa ogtihiin lafaha muhiimadda uu leeyahay waayo qofka haddii uu maanta gacan keliya kaa jabtaa aragta dhibka ah ka maraysa ka waran haddii qofka lugka jaba ama adiga dhan aad jabtid oo kale intaa dhacdid marka sometimes waxaan hooyooyinka ama dadka waaweyn ama soomaalida oo dhan waa la vitamin D-ga inaa vitaminkan qaadato inaa cuntooyinka vitamin D-ga laga helo dhakhtar haddaa leedahay dhakhtarkaada la xiriirto vitamin D-gaada fiiriso haddaad isku aragto xanuun haddaad isku aragto laf xanuun haddaad isku aragto caajis haddaad isku aragto xanaaq badan waxaasoo dhan waxaa leh vitamin D-ga leh wixii comment hore iyo xagga hoose lagu reebi kartaa oo commentiga videogana waxaan kaa codsanaynaa inaad noo subscribe garayso waxba kaama dhamaan free soo maaha dhac kusii wixii su'aalan hoos ayaa nagu soo weydiin kartaa. Assalaamu calaykum.